عدا سبدون راديو successka ugu muhiimsan weeye dadkii Soomaalida ahaa ee walaalaha ahaa ee dalka Norway ku noolaa in maanta aan codkayga gaarsiiyo galmudug waxay tahay oo aan u sheego galmudug inay tahay maamul Soomaaliyeed maamul ay iska leeyihiin dhammaan dadka reer Norway oo Soomaalida oo aan laga xigin meel ay ku soo helan karaan inay tahay galmudug codkaas inaan gaarsiiyo waa fursad aad iyo aad u qiimo badan waxyaalahan ka faa'iido weey sidoo kale dawladda wadankan wada hadal baan galnay ku saabsan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen barnaamijyada aan ka wadno horumarinta deegaanka ballanqaad fiican bay noo sameeyeen ma cid baan ku haynaa khadka telefoonka ku jirto oo su'aal qabta wasiirka caawa sida noogu ah radio Samadoon alo ku soo dhow radio Samadoon habeen walba hadayaan hawada soo galnaa waxa aan ku leeyahay magacaaga meesha aad naga soo wacaysid iyo su'aashaada sida ay u dhiganto السلام عليكم وما سنتهي حسن مقاعد وسعيد على مصر وصلوا برنامجك الو وانكم مقلة يا سعيد سؤال شادو سيدبي ودقنتها كسعة وزيرك عاون لجو حسن مقاعد وسعيد وايه وحكم ذا بلشدة مقالة أصله كنول ولا سعودي برنامجك وسيرك أنا حقبة دكتور عمر هنا ودي سؤال كسلوا سؤال وسير وقصرنا يا مقاعد وسعيد سؤال عن ربينا كل دي مدانا كاي مدنا مسؤول بالمدن maamul goboleedyada sida Puntland iyo Somaliland wax iskaashi ma ka sameeyeen xagga waxbarashada arrimaha caafimaadka iyo bulshada maadaama Soomaalida inta kale ay maartay wali maamulka ka jirin inuu ku maqlayaa fila wasiir iskaashi waa jira xiriir aan leenahay wasiirka waxbarashada muxuu ahaa Galmudug State sanadkii hore ama sanadkan bilowgiisii sida aan filayo muxuu ahaa hadaan halmaansanayn waqtiga uu aaday uu tagay Puntland Garowe oo hay'adaha ay degan yihiin international NGOs-ka waana wasaaradda waxbarashada oo dhigeeda ahna waa ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa barnaamijyada waxbarashada xuduud ma laha siyaasadda iyo waxbarashaduna isuma xirna marka sidaas darteed waa jira Puntland sidoo kale waxaan ballansanahay Somaliland aniga laftiga wax ku soo bartay Somaliland muxuu ahaa dugsi hoose ilaa dugsi sare Somaliland baa warweyso waa isnaqaana rag hadda dawladda ku jiro dhan rag baan isku kalaas ahaan jirno waa isoo naqaana waana xiriir baa jira waxaad moodaa su'aashaas wax yar ka hor baa wada hadlaynay mar Somaliland telefoonku wada hadlaynay marka xiriirku waa jira dadka Soomaalidu ma kala go'ana oo dawladda kala go'an ma aha fiisana la isuma qaato xiriirkaas waa jira in la iskaashadana meesha waa ku jirtaa waana jira muxuu ahaa garashadaas waa jirtaa سعيد waxaan filayaa inaad ku ganacsan tahay jawaabta uu ku siiyay wasiirka caawa martida lagu radio Samadoon wasiir waxaan ku weydiin lahaa safar hadii ay macquul tahay waan ku maqlayaa walaal si kooban hadii aad ugu sheegi kartid waqtigu aad noogu ilaawi su'aasha kale waxay tahay maadaama adiga aad tahay nin oo qurbaha muddo joogay oo qurbaha ka laabtay وفر الله في يعني مارك الدراسات في مارك إنه بدك وحقته محل يقولك إنه بدك مفروض جوكتها وكل عين ومارك بلكي مارك قبعا إنه يكسر لابتهم سؤال سعيد سؤال في عبادي ودي سي أنا لما قضى مصدق قضبان أورل لها ودتك دياس براها دبدة عن وقلت لها مدة كود وحوي بهرت شدتها لقى إيرانيو iyo propaganda dadka gudaha ku jira shaqada wado waxyaalaha propaganda oo dadka qaar website-yada ay ku soo qoraan iyo waxyaalahaas horta dhibka laga ilaaliyo oo yaan dhib la gaarsiin dadka gudaha jooga ee shaqada haya midda labaad waxaan anu kula talin lahaa maanta dadkii waxgaradka ahaa Soomaaliya waxay soo aadeen dibadaha waxay la soo aadeen waxa weeye waa potentialki resourceski waxay la soo aadeen dibadaha dad badan wax arkaysaa muxuu waxbarashada oo experts dad badan oo caafimaadka dad badan oo skills kala duwan leh skillskaas muxuu wadanka looga baahan yahay waxaan oran lahaa dalkii ha lagu celiyo skillska isbedel baa la sameyn karaa muxuu qofku markuu aqoon iyo khibrad uu dibadaha kala yimaado wuxuu ku siyaadin karaa wax badan wuxuu sameyn karaa wax la difference buu sameyn karaa isbedel buu sameyn karaa midda labaad waxa weeye muxuu qodobkaas weeye in lagu laabto saddexaad waxa weeye ilmihii muxuu qurbaha la keenay
soo lama soconno ilmahan inaysan sheegan doonin dalka iyo dadka annaga aan sheeganayno muddo haddii laga soo wareego sidaas darteed ilmaha waddankii in la geeyo fasaxyada la geeyo dhaqankii lasoo baro dalkii lasoo baro anigu saddexaas qodob baa igu muhiimsan wixii markii laga soo tago taageerada gacanta ah oo dadka ku tabaalaysan waddanka oo musiibooyinku ku haystaan ama dagaal oo qaxooti ah oo abaaro ah oo magaciisi in gacan laga geysta ayadana waa ku talinaya afartaas qodob waayahay kaasi waxa waa Saciid kulli su'aal qabiin waxaan filayaa Saciid aan qanacday habeen wanaagsan markaa waad salaaman tahay wasiir haddii aan ku weydiiyo safarkaagan aad ku timid dalka Norway magaalada Oslo sidee u noqonayaa socdaalkaagan ma ay mise inta leeg ma joogaysaa dalka si kooban waxaan imid Norway maalinkii talaadadii na soo dhaaftay baan imid oo bishu waxay ahayd shanta bisha bishaan waxaa ku egyahay socdaalkaygu 11 bisha 12 bisha haddii la yiraahdo oo talaada ah waa ka tegaya waddankan wadamo kale oo Yurubtaan aan rabaa inaan sii maro saan oo kale waxaan filayaa inaan ku helno qad kale telefoon qof Soomaaliya ku jira magaca xagee sana ka soo wacaysaa su'aasha aad wasiirka u qabtaan sidee bay u dhigmaysaa walaal عليكم السلام ماذا هو يعني ربينا ويجي ان سؤال ان جالوسير سوماليا waxay u qaybsanayd ama isticmaal u qeybiyay 5 qaybood oo kala ah NSD Soomaali galbeed Soomaaliya Somaliland marka 5 qaybood loo qeybiyay isticmaal maanta waxaan aragnaa inay si kala qaybsan karnaa Somaliland Puntland galmudug xigan iyo heer Jubbaland Galbeed toban qaybood مسؤول Soomaaliyeed ahaan مسؤول ahaan siyaasi ahaan Soomaaliyeed wuxuu muuqataa siyaasadda isticmaalku waddanka Soomaaliya ay qaybiyo inay maanta waxaan kaaga jawaabayaa isticmaalku waxa uu rabo waa gaar waxa annaga rabnaana waa ka duwan yihiin isticmaalku wuxuu rabay waddankan inuu sii haysto oo uusan calankiisa iyo xorriyadiisa qaadan ma aysan dhicin isticmaalku wuxuu rabay Soomaaliya inay shantaas qaybood ahaato ma aysan dhicin waxaa la socotaa koonfur iyo waqooyi inay isku darsameen rabitaanka shacabka ka muhiimsan rabitaanka isticmaalka haatanna kala qaybsanaantan maamulada la sameynayo dad badan baa waxay u arkaan negative laakiin waxaan u arkaa inay positive tahay in hoos wixii laga soo bilaabo ka bacdina dadka Soomaalidu isdiidi maayaan waa isku imaanayaan oo la noqdo muxuu ahaa optimist oo la noqon pessimist baan aniga qabaa yahay ku soo dhow dalka Norway aad baan ugu mahadsan tahay sida qiimeynta qadarinta leh ee walaaltinimadu ay ku dhahan tahay ee waqtiga qaaliga aad nagu soo hurtay waayahay xasan aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa soo dhaweynta iyo barnaamijka waxaan sidoo kale u celinayaa dhammaan wariyaasha kale oo kula jooga iyo muxuu ahaa ragga kameraha iyo qalabka muxuu ahaa farsamada oo radio Samadoon jooga waxaan iska ilooban rabaa ummadda Soomaalida u sheego tacsi aan rabo inaan halkaan uga soo gudbiyo abwaan abshir bacadle oo nin caan ah oo la yaqaan oo abwaan caan oo Soomaali laga yaqaano waxaan rabaa halkaan inaan tacsi uga soo gudbiyo eheladiisii ilmihiisa iyo saaxiibadiisa iyo dhammaan dadkii muxuu ahaa abshir bacadle yaqaanay iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan tacsi halkaan uga soo gudbiyo asagana waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno Ilaahay inuu ka waraabiyo waana xasan waa mahadsan tahay dadka Soomaalida oo walaalaha oo dalka Norway degan na waa mahadsan yihiin waana muxuu ahaa waxaan rajeynayaa insha Allah inaad isku soo laaban doono waqtiyo badan oo kale mustaqbalka kaasi waxa uu ahaa idinku dalka noogu imaan doontaan kaasi waxa uu ahaa waan idinku soo dhaweynaa galmudug kaasi waxa uu ahaa Cumar Maxamuud Roble wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ee ismaamul goboleedka galmudug aad baad u mahadsan tahay geesiyaan gabadh marin kabashana aqooniyo geesiyaan gabadh marin kabashana aqooniyo garbaye galmudug galmudug